السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب الجنال كداونا يساهم وعلى نور اوفيشال. فضل الجنال كداد كعسبتي سبسكرايب سارة كمبلال كنفرت. أصحابتي إذا قدرينتي قيمها مضن. قيبتاني وقيبتي شنات ذي لما قاعد بحذي سرت لنوال قبي. هذي قيبيه هراء شيء كذا أنكو دافين وحادب ونقون كرتا جنال كناجا على نور اوفيشال وعندكير دونتا إن شاء الله. حاي شيء كذا نوم رئيسي. waris oo xanuunsatay iyo saxardiid oo shaqada ka soo tagay sidoo u soo booqday waris fadlan dhageysi wacan soo dhaaf saxardiid maxaa banaanka ku joojiyay haye inta iri ayaa aniga oo taagtaagsanaya qolka ay ka hadlaysay gudaha u sii galay waxa ku jiray waris iyo gabadhii yareed ee albaabkayga furtay iyo haweeney fadhiday sariirta darafkeeda waris iska waran walaal waris sidee tahay maxaa dareemaysaa intaas markii aan afkayga ka sii dhamaanayso ayaa waris la soo booday naaheedha hodane xagee u carartay ordo soo qabo kursigii cadaa waris waxa ay ugu jawaabtay hadda alxamdulillaah balaayo ma qabo alla ayaa ii gargaaray ayay tiri waris ee adiga iska waran maxaad sheegtay saxardiid markiiba waxa uu yiri alxamdulillaah walaal aad baan u fiicanahay waan ka xumahay inaan ku soo haleeli waayo xilli fiican aad baan ugu xumahay xanuunkaada allaha kaaga dhigo dambi dhaaf ayaan ugu jawaabay markii hore sheekada waxa ay u dhaxaysay labadoodna oo kaliya hase yeeshee haddii ay cabbaar sheekada sii socotay waxa soo dhax gashay haweeneydii la joogtay waxa ayna la soo booday oo warisay waa kuma ninkan waris markii hore dhinac ayay u jiiftay bustana dusha ayuu ka saarnaa marka ay soo fadhiisatay ayay tiri saxardiid barasho wanaagsan waan ka xumahay sheekada ayaa nala tagtay iska baro waa eedaday waxa la yiraahdaa cudbi dhawaan ayay ka timid Kanada eedo aadna barasho wanaagsan inankan waxa la yiraahdaa saxardiid waa dhalinyarada magaalada wax ka degan ayay tiri waris oo iskeen barayso islaanta meesha fadhiday iyo aniga ayay islaantii dhoola cadeysay oo ay tiri alla wiilkan waxa uu aad ugu egyahay Jamaal Jamaal bay qaraabo yihiin waris ayaa markiiba qosol inta iska keentay la soo booday mayo eedo waxba ma wadaagaan inta ay hadallada isdhaafsanayeen waris iyo eedadeed indhaha ayaan ka fiirsanayay cabbaar yar kadib waatan gabadhii yareed oo la ordayso taleefanka gacanta ee waris eedo waa Jamaal la hadal cabbaar ayuu dhacay ma maqlin jikada ayaan ku jiray taleefankii ayay ka qabatay waa uuna salaamay salaantii ayay ka qaaday kadibna waxa uu weydiiyay caafimaadkeeda waxa ay tiri waan fiicanahay balaayo ma qabo hadda intii hore waan dhaamaa ee adiga iska waran inta ay tiri ayay bustihii iska qaaday ayay taleefanka dibadda ula baxday waxa igu dhashay shaki ka badan kii aan hore u qabay waxa maskaxdeeda ku soo noqnoqonaya hadallo badan oo aan is ogolaanayn hadalladaasi waxa ka mid ahaa alla maskiinta haddii maanta ninkeeda joogi lahaa sidaan ayay ahaan lahayd wiilka wuxuu aad ugu egyahay Jamaal Jamaal bay qaraabo yihiin iyo waxyaabo badan oo hore nafteeda ku dhaliyay dareen waxa ay hurtay caloosha markiiba dhulka ayaa ila wareegay gacmihii ayaan ka dhididay waxa bilaabay in aan niyada iskala sheekaysto in aan sii fadhiyo qolka in aan iska sii baxo ayaan kala garan waayay mar waxa aan go'aansaday in aan iska dhaqaaqo aniga oo ruuxna la hadlin marna waan iska daayaa oo waxa aan ku fikiraa bal ilaa ay taleefanka ku hadalkiisa dhamaynayso u kaadi waris hadii la qabo oo ay tahay xaas maxay kaaga qarinaysaa soo fadeexa ma ahan maxa ay sidaa u sameynaysaa kala wixii jiro dambay u soo bixi doonaan nafteeda ayaan hiifay waxaan isku canaantay maxaa halkaan ku keenay soo kuma fiicneen inaan halkaan imaanin waa dhabtaasi oo dhameeyuma dhacdeen hadii aan halkaan imaan lahayn keligii ayaa hadalladaas iyo kuwa kalaba iskula sheekaysay islaantii cudbi ahayd intaas oo aan fikirayo ayadana aniga ayay ugu maqnayd mar kaliya indhaha igama qaadin eedo maxaafadaad wax ka degan tahay ayay iga nixisay ayadoo oo dareentay inaan si u maqanahay maya eedo hase yeeshee kama dheeri oo waxaan deganahay meel aan sidaa ugu fogeen halkaan waxa ay ii sii raacisay intaan jawaabtii hore afka aan ka soo bixin waris xagee baad isku barateen runtii markii ay su'aasha i weydiisay waan baqay mana sahlanayn in aan degdeg ugu jawaabo sababtoo ah
waxaa i galay dareen ka badan kii hore. Saxardiid iyo eedo cudbiyey iga raali ahaada, taleefanka ayaan ku dheeraaday. Waa weriso si kadiisaan ugu soo gashay. Iga tag haddii aan helay waxaan ugu marmeerto. Su'aashii ay i weydiisay ayaa niyadda iska iri. Xilligaasna aad ayaan u baqay. Haddana waxa aan ka baqay in islaanta su'aashii isii weydiiso. Anigana jaanis ma siinine inta joogsaday ayaan ku iri galab wanaagsan, eedo cudbiyey barasho wanaagsan. Kulley waan wada joognaa. Hadda shaqadii baan ku laabanayaa oo la iga sugayay. Adigana werisay caafimaad Allah ha ku siiyo, waan sii soconayaa. Werisoo dhoola cadaynaysa ayaa tiri, saxardiido xageed u cararaysaa hadda timide? Maya abaayo, shaqadii aan ka soo tagay ayaa la gaaray. Haye aboo mahadsanid, malaa'ika ku soo salaanto. Inta ay tiri ayay hore iisii dhaweysay. Saxardiid waxa uu yiri, sidoo kale waad mahadsan tahay. Booqashadaadana waa igu waajib, maxaa yeelay waxaad tahay ruuxa kaliya ee nafteeda dareento xilli walbo. Marka booqasho iyo wax ka badanba waad iga istaahishaa. Balse hadda waan sii baxayay, eedo u sii sheekee wixii noo harsanna caawa waan taleefanka ka dhamaysanaynaa insha Allah. Inta iri ayaan ka sii dhaqaaqay. Intii aan sii socday wadada, waxa ay nafteeda dareemaysay ciriiri iyo buuq badan. Cagihii ayaan qaadi waayay. Sidii aniga oo iskula sheekaysanayo ayaan tagay xaafadeydii. Aniga oo nasan oo dharkaygii shaqada iska bixin ayaa inta sariirta isku tuuray ku calaacalay erayadan soo socdo. Markuu calanka kaa dhaco taladana ay kugu ciirto, camal xumo daraadeed markaad cunto cuni weyso, sidii curad lagaa dilay markaad caday u dhuubnaato. Miyaa ciil loo dhintaa, miyaa cara lala tagaa, miyaa camal loo go'aa ruuxaad calmatee jeclaato dunida aad ugu caaganaato. Nafteyda ayadoon canaanan, haddii cambeyo how bislaaday codkaaga nafteyda deeqay. Haddaan cindiga iyo laabtiyo caloosheeda kuu baneeyay, dawooy ma inaad diciishaa, cakuwi la igu wiirsadaa. Miyaa ciil loo dhintaa, miyaa cara lala tagaa, miyaa camal loo go'aa. Asxaabteyda qiimaha iyo qaayaha badan, waxaan idiin soo diyaarinayaa qaybtii 6aad ee sheekadan isirtay ileen waa la qabay. Fadlan channelka haddaad ku cusubtihiin subscribe saara.